السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إنا لله وإنا إليه راجعون. إنا لله وإنا إليه راجعون. إنا لله وإنا إليه راجعون. intii dhimata allah u naxariisto, inta dhaawacaana ilaahay ha u boogadhayo. qaraxii sooba ka dhacay ummado badan baa ku dhammaatay, ilmo badan baa ku hooyo iyo aabbo waayey, qoysas badan baa ku dumay oo ku dhammaaday. ilaahay ha u naxariisto intii dhimatay, inta dhaawacaana ilaahay dhaawacooda si fudud oo saqiran ha ka dhigo. ilaahay gadaashoodna ma fidneeyo. ilaahay waxaan uga baryayaa janno fardowsa aclaa inuu ilaahay ka waraabiyo. ilaahay janno fardowsa aclaa ha ugu bishaareeyo. qoysaska ay ka baxeenna ilaahay qalbiyadooda ha u qaboojiyo. booskay banneeyeen ilaahay beddel khayr qaba ha u geliyo. ilaahu rabbiyow intii dhimatay u naxariiso. dadka ku dhintay wiil madi aha oo ehelkiisa asagaa ka haray, hooyadiis iyo aabihiis qaraxii soobay ku dhinteen. maantana qaraxii soobo oo 17kii ku dhinteen, maantana kan asagaa ku dhinto. marka allah u naxariisto intii dhimatay, ta dhaawacaana ilaahay dhaawacooda mid saqiran ha ka dhigo. ilaahay dhaawacaha si fudud ha uga soo kiciyo. dad badan baa ku naf waaye, dad badan baa ku dhammaaday, ilmo badan baa aabbahood iyo hooyadooda ku dhinteen, waalid baa ilmahoodii ku dhammaadeen. maalin kasta waa soo beriye qaraxa u taagana. sanad walba bil walba maalin ilaahay keeno qaraxun baa ku dhammaanaynaa. maxaan uga hortagnaa ma jirto. maxaa xal noo ah ma jirto. aboo qalbiyadoodu maalina ma soo dabcamiya kuwa maalin walba inay wax laayaan oo wax dilaan raba. qalbigoodu maalina ma soo dabcamiya. qalbigoodu maalinna ma gasho miya. maxaa qofkan ku dilaysaa? maalinna qalbigoodu ma galaa. ilaahu qalbigooda geli, ilaahu awooddaada ku geli qalbigooda inay yiraahdaan maxaa qofkan ku dilaysaa. haddana dhallinyarada waxaan la dili maayo. dhallinyarada meesha hadda wasaaradda waxbarashada shahaadadii sanad dugsiyeedka ardadii qalin jabisay oo imtixaankii shahaadadoodii baa soo baxaysay. meelahaasoo kaley raadsadaan. waa wax loo soo diray inay dhallinyarada dhammeeyaan. dadka dhallinyarada maxamuda soomaaliya in la yiri dadka dhallinyarada ha laga dhammeeyo. maqaanin ilaahay unbaa talo og. ilaahay unbaa wax og. kole waa maalin walba saanaan ku soconaaye ilaahay nooma garan. ilaahay waa naga bixin karaa haddii dad tawfiiq le aan nahay. yaa oo ilaahay wuxuu yiri dadaal waa kula jiraayo. haddaan dad dadaalayo oo u dadaalayo waxaan inaan iska suulino, yaa ilaahay waa nala jiraya. ilaahay diintiisa kuma sheegin, kitaabka ilaahay kuma qorno maalin kasta in dhiig la daadiyo, in dad la dilo kitaabka ilaahay kuma qorno. ilaahay diintu noo soo dejiyo waa nasteexo. kan raba inuu diinta igu maamulo si nasteexa leh oo macaan inuu igu maamulo baa ilaahay u soo dejiye. diinteenu waa nasteexo. magac diin ha nugu dilinina, magac kala sheegta. wax diinta raba inay diinteenna inay xumaan u yeelaan baa waxaan soo fakeray. ma ahan dad islaana, ma ahan dad islaana. dadkii waa dhammaada, waa dhammaanay. hooyooyin, aabbayaal, caruur
cimrigeena waxaan ku dhammaysanaa xabad iyo dil. meeqa sanaan ku jirnaa, meeqa sanaan ku jirnaa dagaal iyo colaad aan maalinna soo gabaabinayn oo maalinba magac noo yeelanaya, midba mid buu noogu xuub siibanaya, noogu magac yeelanaya. ilaahu intii dhimata u naxariiso, ilaahu annagana gadaashood hana fidnayn, ilaahu musiibadaa naga qabo, ilaahu musiibadaa naga qabo, ilaahu dadkii waa dhammaado, ilaahu colaad, abaar, dhaqaalo la'aan, intaasba waa isku darsan. dhibkeedana waxa waaye wax dhibkana haystaa meeshuu naga haysto dad labada dadka iskugu dhow ay isnecab yihiin baana. diintii baan isku haysanaa, anaa sax haystiyo anaa sax haysto, xaggee u baxsanayna. imise sanaan ku jirnaa xabad iyo qarax, imise sano waan ku ilmo dhalnay, waan ku korsanna ayadoo xabadda dhacayso. ilmaheenyaa ilmo ku dhalaaya, soo xanuun maaha, soo xanuun maaha. ilaahu intii dhimato u naxariiso, ilaahu intii dhimato u naxariiso, ilaahu janno fardowsa aclaa ka waraabi, ilaahu inta dhaawacana si fudud noogu kici, ilaa xalay ooyin baa ku jira. ilaahu rabbiyow intii dhimato u naxariiso.